daawadayaal Muqdisho maanta waxaa ka dhacday wixii ugu darnaa qarax la oran jiray qaraxaas oo ay ku halaagmeen bulsho fara badan oo Soomaaliyeed marka koobaad waxaan idinka codsanayaa si naxariis leh inaad bulshadaasi Soomaaliyeed u duceysaan in Ilaahay u naxariisto waxa halkaas ku dhintay bulsho fara badan oo Soomaaliyeed inta la yaqaano iyo intaan la aqoon iyaguna ku dhimatay baa fara badan waxa jirtay dhacdooyin kala duwan oo halkaas ka dhacay bulshadaas Ilaahay u naxariisto waxaad arkaysay dadyow hilbahoodii go'ay waxaa jirtay dhacdo naxdin badan oo soo jiidatay taas oo ahayd wariye lagu magacaabo Maxamed Ciise Koona oo la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay familgoodii si markaasi istaba jooga ay u dhibbanayeen Ilaahay u naxariisto wiilkaasna iyo guud ahaan bulshadii Soomaaliyeed ee halkaas ku dhimantay waxay ahayd geeri naxdin fara badan oo bulshada Soomaaliyeed maanta xasuuq daran baa dhacay xasuuqaas wuxuu ahaa xasuuq markaas bulshada Soomaaliyeed markaas lala damacsanaa gaar ahaan balmaatada aan waxba markaas galabsan loogu talagalay in halkaas lagu xasuuqo waan ka taxsiideynaya waa geeri naxdin badan guud ahaan ummadii islaamka ahayd ee halka ku dhimatay kooxda markaas argagixisada al-shabaab ay ku xasuuqeen waan u taxsiideynaya Ilaahay u naxariisto dhamaantood saacad kasta waxa la helayaa warar markaas wararkii ka gedisan waxa jirta bulsho fara badan waxana badan dadka la garanayo marka laga yimaado dadka kale ee shacabka ah ee isaga xamaalanay halkaas ee meeshaas ku halaagmay waxa jira dadka la yaqaano dad kale oo aan la aqoon oo ka fara badan oo halkaas ku dhintay Ilaahay dhamaantood ha wada naxariisto waxay ahayd gacan ka xaq daran baa halkaas ku xasuuqday waxaan rajaynayaa in bulshada Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan cadawga markaas dadka Soomaaliyeed ee al-shabaab ugu dambeyntii Ilaahay ha u naxariisto bulshadaasi Soomaaliyeed ee halkaas lagu xasuuqay waxaan rajaynayaa in maadaama ay adduunka ka tageen in xaq Ilaahay ay markaas cadaalad ka helaan oo ay Ilaahay jannatul firdaws u geeyo maadaama gacan ka xaq daran ay markaas dishay xamar dhaxal uma helin dikorkeeda lagu qubo xamar dhaxal uma helin dadkeeda lagu dhibo xamar dhaxal uma helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida xamar dhaxal uma helin in dhexdeeda lagu dilo dhallaankiyo tuqaytida xamar dhaxal uma helin geeri joogtay oo dhagar xamar dhaxal uma helin geeri joogtay oo dhagar